furaleysta la yidhi xoolo iyo caruur iyo wax walba way helaysaan hadda waa astaghfir allah halay sheegayna niyaro Soomaaliyeed oo muslima oo Mareykan joogo shaqaysta oo yidhi maalintii 2,000 astaghfir allah baa sameeyayo wax haba yaraatee nolosheedii soo hortaagaba jiraan hooyaday baan maalintii dambe oo dukaan haysato waxa ku yidhi hooyo haddaad laftaada astaghfir allah badiso dukaanka uu camirmaya islaantiina way samaysay dukaankeedu ma baacamirmay kuwa kale la dhaafaa waxaan uga jeedaa marka waxa la ina baraya asbaab kale aan ahayn asbaabtan maadiga inuu naqaano shilin ku darka aan ahayn oo nolosha wax ka bedeshaa inay jirto oo ah rabbus samaawaati inuu labadaba isaga qaanuunkan dhigay qaanuunkan fiisigiska iyo dhaqaalaha nolosha lagu wato isaga dhigay maca dalika isaga ana ka talaabsan kara ولذلك با كراماتك يا معجزاتك يا وحاصو دمي waa maxay waqaanunka in naqaano laga talaabsanaya karaamadu waa wixii inuu naqaanayo laga talaabsaday ولذلك suuradani waxayna baraysaa marka fitanka dhamaanteed haday fitna diineed tahay iyo haday mid maaltay iyo haday mid cilmi tahay iyo haday mid sulta tahayba in laga talaabsan karo hadaad suuradani manhajkeeda fahamtid oo ah qofka suuradan akhriya adaa lahu nuurun balayri نور بالله إفيا وبين الجمعة والجمعة وكيف سكر بالله إفيا وحين سورة تاني وحي بريسا قفك مسلم كا نلش وحين هذا وحلا قبقه وحين هذا مشكلات كاهرية هذا وحين هذا هي مجدية وقلق بين هذا وحي سورة تاني كبريسا سكينة ده حسلوني ده يطمانين ده يهدات سورة تنخرده إن قلبك كو حصله وأنا وحاسك أرجح قلنين لا حق قلبك أرجح قلنيا ولا دقاليك أبدا ينبك أرجح قلنيا ولا دون دانو ما ملابك أرجح قلني سواء واحد ربيسات رب السماوات والأرض إن كحرنتها وكتحنتي ولذلك أيها الأحبة هذين سنة سورة كور مرنتي بدن بين شيء كرنا ما إن قصص كمدنا ما إن تفصيل تفاسير تقول لك أنا الله يدين تفصيلنا